maamulka dekada caalamiga ee Berbera Port oo ay weelinayaan wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay maanta kormeer kala duwan ku soo mareen dhismaha barxad cusub oo ay maamulka dekada Berberi ku soo kordhiyeen dekada taasoo loogu talagalay in la dhigo konteenarada marka ay ka soo degaan markabka waxaana uu in muddo dhismahani ka socday dekada caalamiga ee Berbera Port barxadani cusub ee lagu soo kordhiyay dekada Berbera ayaa mid lagu dhisay hab iska wax u qabsa iyadoo ay dhismihiisa ka qayb qaateen shaqaalaha waaxaha kala duwan ee ka shaqeeya dekada sidoo kale waxaa dhisida dhismahani qayb ka ahaa shaqaalaha customka magaalada Berbera iyo shaqaalaweynaha qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta sida shirkadda Telesom maamulka dekada Berbera sida maareeyaha dekada Berbera Engineer Cali Umar Maxamed Cali Xoorxoor iyo ku-xigeenkiisa Umar Abakar Jaamac oo ugu horeyntii munaasabadaasi daahfuray ayaa ka xog waramay ballaadhintan ay ku sameeyeen dekada Berbera iyo ahmiyadda ay u leedahay dekada iyagoo u mahadnaqay shaqaalaha waaxaha kala duwan ee dekada oo iyagu qayb lixaad leh ka qaatay dhismaha dekadani cusub waxaan la socodsiinayaa imka halkan inta mitir square halkan aanu badacada dhignay imka waxa weeyaan ay dhamaatay waxa weeyaan 20 km square 20 kun waxay noqon doonaan 100 km square insha Allah taala waxaan rajaynayaa June hadii alla yiraahdo ilaahay wax badan la insha Allah taala June in 100 km square ay dhamaan doonaan runtii arrinkan dadka reer Somaliland aad bay uga warhayaan laakiin xumaan maanta iftiiminay in halkan aan joognaa inay tahay meeshii la sameeyay oo aanu shaqadii ku bilownay furitaanka officialka waxa qaban doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan kaliya doonayaa inaan sheego dekedan waxa jirta qayb aanu anagu deked ahaan iska wuxuu qabso qayb aan ay deked shaqaalaha deked ka caawinayeen shaqaalihii dekeda ee qaybta iska wuxuu qabsada ku shaqeynayay ayaan doonayaa halkan aan uga mahadnaqo oo ay naadiyaan sameeynay wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Cilmi iyo barasaabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo iyaguna ka hadlay goobtaasi ayaa maamulka dekada ku amaanay waxqabadka baaxadda leh ay ka hirgeliyeen dekada iyagoona sheegay in waxqabadkani ka mid yahay waxqabadyada iyo horumarada la taaban karo ay xukuumaddu ka hirgelisay dalka maanta waxa farxad noo ah inaan maanta halkan ka soo qayb galno waxqabadkii xukuumadda uu galwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo runtii maalintii madaxweynaha ayaa halka xali ayaa dhagax dhigay madaxweynuhu markuu dhagax dhigay maanta midhadhalkeedina ay muuqato maanta se isaga baadiisaba waan ku hambalyeeyaa runtii waa ugu ducaynayaa waxaan qaran ahaan leeyahay wasiirkayga gaartay horta madaxweynaha in shaqadii iska wuxuu qabsaday inuu soo celiyo waxaana ay maamulka dekadu ay sheegeen inuu dhismahan rasmi ah uu xadhiga uga jari doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa banaanee Bulsha TV magaalada Berbera